kulanti wacan daawadayaal war degdeg oo hadda naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay Xasan Toob oo kamid ahaa dadka magaalada Muqdisho ugu caansan isla markaana ah YouTuber ku nool magaalada Muqdisho. Xasan Toob ayaa laamaha ammaanku waxay u taxaabeen xabsiga gaar ahaan xarunta CID-da oo nabad sugidda Soomaaliya ay degan tahay isla markaana halka lagu baarayo su'aalana lagu weydiinayo maxaa loo xiray Xasan Toob, sababtu maxay tahay, maxaa loo haystaa, maxaa ka jira inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab, qaabku ula shaqeey jiray iyo arrimahaas ayaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo Xasan Toob oo kamid ah kuwa ugu caansan magaalada Muqdisho. Xasan Toob ayaa hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho waxaana la yaaban yahay sababta laamaha ammaanku ay xabsiga ugu taxaabeen. Waxaana jira warar sheegaya in xabsiga loo dhigay sabab la xiriir inuu xiriir la lahaa kooxda Al-Shabaab. balse inta aan u guda galin daawadayaal muuqaalka oo faahfaahsan halkani waa Galaangal News. haddii aad ku cusub tahay channelkayna tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe saaro calaamada gambaleelkana iska hilmaami si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena iyo xogaha aan baahino. aan guda galay wariye ka tirsan kuwa magaalada Muqdisho ku nool isla markaana ah YouTuber ayay laamaha ammaanku waxay u taxaabeen xabsiga isla markaana waxa hadda su'aalo lagu weydiinayaa xarunta dabibaarista ee loo yaqaan CID-da. Xasan Toob ayaa kamid ah dadka ugu caansan magaalada Muqdisho wuxuuna ku shaqeystaa aaladda loo yaqaano YouTube-ka ee baraha bulshada. horaantii bishan ayay ahayd markii Xasan Toob lagala wareegay goob uu maamulo isla markaana lagu magacaabo Durdur Media. Xasan Toob ayaa waxa laga weydiinayaa inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab sidoo kalena uu dhaqaale u aruuri jiray. arrimahaas iyo arrimo kale ayaa laga yaabaa in Xasan Toob loo haysto. ma cadda sida Xasan Toob arrintan ugu lug leeyahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay xabsiyada ku gurayday dad ku nool magaalada Muqdisho iyadoo lagu eedeynaya qaar inay la shaqeeyaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda si dadbanna ula shaqeynayay. sidoo kale fanaana ayaa u xiran dowladda federaalka waxaana muuqaal la soo dhigay baraha bulshada uu ku qirtay inuu ka tirsan yahay kooxdaasi. waxaana arrimahaasi ay isbiirsaday ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in Xasan Toobna uu kamid yahay kooxaha la shaqeeya kuwa dowladda ka soo horjeeda iyo sidoo kale kooxaha argagixisada ah. Xasan Toob ayaa hadda wuxuu ku jiraa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho waxaana halkaas su'aalo lagu weydiinayaa. dhowr maalin ka hor ayaa xabsiga sidoo kale waxaa loo taxaabay nin Xasan Toob la shaqeeya isla markaana lagu magacaabo Lugeel sidoo kalena ka tirsana howlwadeenada Durdur Media oo Xasan Toob milkiiladeeda leeyahay. ma cadda sida arrimahan ay u saameyn doonaan shakhsiyadda Xasan Toob ilaa hadda laguma cadayn inuu ka tirsan yahay kooxaha dowladda ka soo horjeeda iyo inuu gacan saar la lahaa. waxaana dadka qaar ay noo sheegeen aan la xiriirnay in Xasan Toob wax laga weydiinayo ninkan ay hore dowladda federaalka u xirtay. sidoo kalena hay'adda NISA iyo sirdoonka qaranka ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa la sheegay inay dabagal ku Xasan Toob waraysi uu siiyay sidoo kale wariye lagu magacaabo Maxamed Daahir Carab oo ku nool dalka Belgium ayuu Xasan Toob ku sheegay inuu laamaha ammaanka baxsad ka yahay isla markaana ay soo food saartay xaalad qalqal iyo ammaan darro ah. ma cadda sababaha loo haysto Xasan Toob ilaa hadda ma jirto wax lagu soo cadeeyay. waxaana loo haystaa inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda ka soo horjeeda uu sidoo kalena u qaabilsanaa baraha bulshada lacagana u aruurin jiray. sidoo kale waxay dowladdu sheegtay ama hay'adaha ammaanku warar hor u dhacay hadda sheegeen inuu si dadban ula shaqeynayay kooxdaasi. sidoo kalena waxaa suuragal ah in maalmaha soo socda Xasan Toob warbaahinta loo soo bandhigo haddii lagu helo dambiyada lagu eedeynayo. wariye ka tirsan kuwa magaalada Muqdisho ku nool isla markaana ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta sidoo kalena soo gudbiya barnaamijka lagu magacaabo Gungaar ayaa bartiisa Facebook ku daabacay in Xasan Toob hadda xabsiga la dhigay isla markaana dowladda federaalka ay su'aalo weydiin doonto. waxaa suuragal ah in Xasan Toob war ka soo baxaan. halkani waa Galaangal Media sidoo kale waxay la xiriirtay Galaangal qaar kamid ah dadka Xasan Toob la shaqeeya kana mid ah kuwa Durdur Media howlwadeenadeeda ah waxayna ka gaabsadeen in arrintan wax faahfaahin ka bixiyaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda wax war ka soo saareen xariga Xasan Toob loo geystay iyo sababaha loo xiray. magaalada Muqdisho ayaa waayihii u dambeeyay waxaa dadka soo food saartay qalqal xagga is-aaminaada ah. fanaan kamid ah kuwa magaalada Muqdisho ku nool uu qirtay inuu la shaqeeyo kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee nabadeedka. sidoo kalena waxaa la sheegay in fanaankaasi markii la qabtay dadku ay kala shakiyeen sidoo kalena xaalad ay soo food saartay dadkii aad iskugu dhaweysay aaminaadiina ay dhamaatay. lama cadayn karo sababaha hadda Xasan Toob u xiran yahay waxaana suuragal ah inuu xiriir la leeyahay kooxahaasi balse waxaan sugaynaa laamaha ammaanku siday war uga soo saaraan iyo faahfaahintii u dambeeyay ee ka soo baxay Xasan Toob iyo wuxuu ku jiro.
sidoo kale waxaa laga yaabaa in Xasan Toob warbaahinta loo soo bandhigo haddii lagu helo faldambiyeedka lagu eedeynayay ilaamaha ammaankuna hadda ay su'aalo weydiinayaan daqiiqada ka hor ayaa Xasan Toob waxaa la sheegay in lagala baxay guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho labana sheegin sababta ay dowladda federaalka u cuskatay xarigiisa mana jirin waaran hore lagu soo jaray maadaama sharciga qofka markii la soo xirayo la soo ogeysiyo sidoo kalena maxkamadda looga yeerayo loo soo sheego inuu yimaado meesha laga rabo iyo xarumaha dowladda federaalka uga furan cadaaladda Xasan Toob ayaa hadda waxa uu wajahaya xabsi aan la ogeyn sida uu uga soo bixi doono wax faahfaahinana aan laga haynin maxaan ka naqaanaa Xasan Toob waa qof nuucee ah bulshada Soomaaliyeed muxuu u qabtaa Xasan Toob wuxuu madadaaliyaa ama ka qosliyaa dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada waana YouTuber caan ka ah aaladda social media ee YouTube-ka wuxuuna leeyahay akoon waa kan Xasan Toob oo ka faaloonaya Xasan Toob waxa uu yahay bal wax yar aan dhageysana Xasan Toob qofka uu yahay maalin Xasan Toob Israa'iil mid kale ka cabsay hadda goor oo hore artab bisoo ilad milida u dhaay إذا أحد كده وهنا أقول إنه هو جدودي أما أنا هريا إسلامية فشل من ذا وجودي إذا ده يا أخي أنا غير هذا تيجي ده محاسة يوجي مسكولين هاي هذا تدخل أتجر مكايل هاي عكادو مكايل له وابسطين داود يا دلخات كي يقول دلخاتين تخذيه كونا هذلاين وإن كلمة علنا وحول بويد عن لكن قفك مركو دوا إنه ده أنا غلط يدعي لكن إن أنا غلط كلا إسارة عشان زوم صودا على شيء متكلمنا على لو ينكر أو فيديو هو ينكر 10 كلا واي فيديو شوت واي هذا كور خف عن ما يعيشنا شيء مربي الشيء كذا عمل كل هذا يقول فيديو شوت واي مركب فيديو شوت كيمياء تاني كنا تتنبه سيدا سيو نبت قليل قبلنا صومالي ذا إستاليا بالكستي جوغانا ويكا دح مقان دلدل كادابان كودا بيريفو جرتان وادايلو Xasan Toob ayaa ah ninkan oo aad hadda daawateen muuqaalkiisa isla markaana waa asaga iyo Fartuun Balbalaarka oo markii ugu horeeyay ay soo caanbaxaysa sidoo kale Xasan Toob ayaa waxa muuqaalkan kaga hadlayay khilaafkii soo kala dhaxgalay ayada iyo Fartuun Balbalaarka oo sheegtay inuu isagu surwaalka u galiyay waa Xasan Toob Fartuun Balbalaarka ayaa sidoo kale hadda waxa la leeyahay waxay sideed ayaduna sidoo kale ay wajahaysaa xaalad ammaan kadib markii Xasan Toob la xiray oo ah ninkii soo caanbixiyay Fartuun ayaa hadda waxa ay la aqoon meesha ay ku sugan tahay sidoo kale waxay ka baxday ayaa la leeyahay guriga ay ka deganeed magaalada Muqdisho waxayna ilaa ay hadda la leeyahay meesha ay jaaniye cirib dhigtay lama yaqaan waxa ku qasbay inay Fartuun Balbalaarka ka carartay guriga ay deganeed maadaama dadka reer Muqdisho ay badankood kala shakiyeen lama yaqaan laamaha ammaanku waxyaalaha ay uga falceli doonaan Xasan Toob oo ku jira gacanta dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA iyo sirdoonka qaranka maalmihii u dambeeyay waxa Xasan Toob sidoo kale uu sheegay inuu wajahayo ammaan darri iyo meesha looga imaanayo sidoo kalena uu helayo telefono aan la aqoon cidda u soo dirida wuxuu sidoo kale Xasan Toob dhowr mar sheegay in xaaladiisa ammaan ay halis ku jirto lana dili doono haddii Xasan Toob xaaladiisuna ay hadda saan ku sii socoto waxay noqon doontaa inuu Xasan Toob wajaho xaalad halisa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxay noqotay meel isku ugaarsado xaaladda ammaan darri magaalada Muqdisho ayaa markii ugu dambeysay waxay cirka isku shareertay markii la soo qabtay fanaan la sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda Waaberi oo sidoo kale kamid ah fanaaniinta ugu caansan magaalada Muqdisho kooxda Waaberi waa koox ka howlgashan magaalada Muqdisho oo diiwaan gashan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ay ka tirsan yihiin ninkan ayaa horaantii bishii aan soo dhaafna wuxuu qirtay inuu la shaqeeyo dowladda kooxaha ka soo horjeeda sidoo kalena uu ka mid yahay kooxdaas muddo 7 sanadood oo la shaqeynayay arintan ayaa dadka qaar waxay sheegeen waa mid lagu qasbay lamana yaqaan si loo shaaci doono Galangal News mas'uul kama ahan waxyaalaha ka soo baxay dadka qaar waxaan la xiriir doonaa isuna digi doonaa inaan la xiriirno qaar ka mid ah laamaha ammaanka waxayna noo soo sheegi doonaan ama haddii aan ka helno faahfaahin ayaan idin soo gudbi doonaa xaaladda Xasan Toob ayaa hadda waxay tahay mid cakiran wuxuuna hadda ku jira xarunta CID-da ee dambe baarista u dhow xarunta lambar 4 ee magaalada Muqdisho Xasan Toobna wuxuu hadda ka mid yahay dadka gacanta dowladda soo galay waxaana la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo ku daba jirtay gaar ahaan hay'adda
nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana wax laga weydiinayaa la leeyahay nin horaantii bishan ay dowladda federaalka ah oo gacanta ku dhigtay gaar ahaan hay'adda nisa iyo sirdoonka qaranka wuxuuna ninkaas hadda ku xiran yahay magaalada muqdisho waxaana laga weydiin doonaa su'aalo qaabkii uu la shaqeynayay ama uu uga shaqaaleysiiyay shabakadiisa YouTube-ka ee durdur media halkani waa Glangal News haddii aad ku cusub tahay inta markii kugu horeysay fadlan subscribe saaro si aad u noqoto muuqaaladeena qofka ugu horeeya ee daawada waa ku maasan tahay daawashadaada Glangal News